waxaa maanta laga daafuray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar marshuuc dib loogu soo celinayo rajada dadka ay xooluhu ka dhamaysay abaartii baahsaneed ee gobolka Saraar ka dhacday. Marshuucan oo ay soo qaban qaabiyeen qurbajoog ka soo jeeda gobolka Saraar oo horkacaya hay'adda Sunna Heelaska oo hormuud yahay Axmed Yuusuf Canjeex oo kamid ah qurbajooga gobolka Saraar ayaa waxaa laga fulinayaa deegaanka Farmara oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Caynaba. Marshuucan ayaa waxaa qayb ka riigag biyaha oo macaan laga taagi doona deegaankaasi. Sidoo kale waxaa dadka deegaankaasi loo sameyn doonaa beero iyadoo sidoo kale la abuuri doono lana sarci doono cawska ay xooluhu cunaan. Marshuucan ayaa inta uu socdo waxa ka faa'iideysanaya dad gaaraya 3,000 oo qoys oo u dhiganta 6,000 qof. waxaana ugu horreynba marshuucaasi faahfaahin ka bixiyay Axmed Yuusuf Canjeex oo ah hormuudka marshuucaasi. waxa weeyaan Axmed Yuusuf Canjeex waxaan ay deegaankan inuu dhashay Caynabo waad aragteen ma abaarahayna naafiyay dalkeena iyo dadkeeni taawgeed waxaan runtii go'aansaday inaan project maanta aan ugu soo sameeyo oo aan idin keeno. waxaan leeyahay idinkoo dhan deegaankiya ka faa'iideysta oo waxaan igu xidhan waxa idinka ku xidhan waxaan ku xidhan waxaan isku xidhnaantiina iyo fulintiisa mashruucaas inuu sidii soo socdo ana waxa igu xidhan sidaan fulinkii iyo u baadi doon lahaa iyo hawshiisii wixii dhiman waxaan leeyahay guddi u samaysta adag oo shaqeeya waxaad u samaysaan guddidii maxay ahayd maamul lahayd waa iskaashato waxa la yahaa waa Farmara village water system design saas u samaysan yahay waxaan leeyahay Caynaba waa meel aad qiimo badan ugu leeyahay aniga oo ku dhashay marka runtii waxaan leeyahay ka faa'iideysta mashruucan waa mashruuc xoolo dhaqad iyo beeraha intaba ka kooban dhammaantiin idinkoo wada socdo isku gacan kaliya ka faa'iideysta wuxuu bilaabmi doonaa insha Allah biidmillahi kan sida taariikhdu tahay wuxuu bilaabmi doonaa bisha 7aad buu bilaabmi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo waxa ka faa'iideysanaya 3,000 oo qof ilaa 6,000 oo qof ka faa'iideysanaya. faa'iidooyinka ugu horeeya waxa kamid ah in la helo marka horeysa xoolihii la joojiyo oo la fariisiyo oo xooluhu noqdaan xoolo biyo loo soo saaro iyo doogna loo beero. waxa ku xiga in beer loo sameeyo deegaanka sidii loo maamuli jiray koox loo maamulo iyo qoys loo maamulo 30 qoys ba loo sameeyo 30 qoysba in loo sameeyo cid xukunta iyo cid maamusho ku ogaata wax maamulkoodii oo la dejiyo xoolaha soconaya wareegaya la joojiyo. mashruucana waa mashruuca ugu casrisan maanta caalamka Soomaalidu degto faa'iideysta Soomaaliland ka faa'iideysta waxa la hadii kaas najaxo waxay ugu ballan qaadeen dawladda qadar ugu ballan qaaday inay dhisaso 15 ceel oo lamid ah hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah bismillaah kariim. maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf qaar ka mid ah cuqaasha iyo xakaradka gobolka Saraar ayaa dhamaantoodba si mug lagu soo dhaweeyay marshuucan waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay mid si weyn loogu baahnaa wax weyn ka tari doona dib u soo celinta nolosha dadka xoolo dhaqatada ah ee ku waxyeeloobay abaarihii kala duwan ee gobolkani ka dhacay. halkan maanta Axmed Yuusuf Canjeex oo daafuraya mashruuca maadaama uu yahay mashruuc baan hayaa annaguna waxaanu haynaa dhulkii waxaana loo ka baahan yahay hadduu mashruucaasi waa mashruuc qaaliya ومشروع واحتر له ومشروع فائدة له ومشروع يوبهنا أن تتكني حولنا كاو ريجي ينوين هين إن ما تحولنا للدجي وإحنا لبيره وضدكو هالكا يقول ما دان هالكا حوله الدجيان والدجان نقدانو بيالله سمايو ووحي يمدن يوبهنا جزاك الله خير بالله نهاي أنتي ديس هالكا وحي سقويمي dadkii runtii u baahan in la taageero waxaana aad ugu mahadnaqayaa Axmed Weli Yuusuf Cabdi oo runtii ka soo shaqeeyay mashruuc khayriya oo gobolkan dadka ku abaaroobay ee dhibaatada haysato wax badan ka tari doona insha Allah biidnillaahi kariim markuu guuleysto. Axmed waxaanu ku leenahay adiga iyo hay'adaada aad wadatay Sunna Healthcare mashruucan biyaha iyo dib u dejinta wadada aad baan idin soo dhaweynaynaa waanu idin la shaqaynaynaa annaga waajibkayagu wuxuu yahay waa gudanaynaa idinkuna waxa wadaan Ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu idin soo fududeeyo yaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa waxa raaca mashruucan uu keenay waa kii aan u baahnayn waanu ugu faraxnay waxa sida uu noo yiri waanu qaadan waanu ku ayidsanahay waana ka hawlgaleynaa waxa la wixii naga gudboon kuwa ka hawlgalaya ka qabta ku dadaala ayaa nahay balantaas aanu qaadayna waana ku ayidsanahay
waxaanu kaga hawlgelaynaa in allaale inta naga qusaysa ee nagu habboon hadday dhul tahay hadday ilaalin tahay hadday wax soo saar tahay inta naga qusaysaanu annaguna kaa ballan qaadaynaa in aanu ka shaqayno oo aan wax dhibaatay ka iman haddii ayaamahan yar ee aynu jaango aan ilaahayna sii nooleeya cidda noolaata waan kaa ballan qaadaynaa oo waan kaala shaqaynaynaa oo waan idinkala shaqaynaynaa cid allaale ciddii ku howlan oo maslaxaddaa dadka wax ka qabanaysa oo ilaahay loogu dhowaanayo beer gubanaya oo baahi hayso wax ka baahi badani ma jiraan waa beer gubanaya weeyaan dee cidda beerkaa gubanaysa qaboojisa ilaahay baa u qaboojinayo oo dibadda ka keenay mashruuca waxaanu doonaynaa waa naloo in la taageero oo wax lala qabto oo dawladdu dee wixii aanay iyadu qaban oo waddanka ka qaban dee waxbaa ka dhiman sow garan maysid rag oo gacan ku siiso isaga iyo ehelkiisa iyo inta la socotaba annana ugu hoggaansanna waana la taabgalayna waana la talgalayna gamco furan baan ku soo dhaweynaynaa waanu hambaliyeynaynaa waanu qaadanay waa wax loo baahnaa deegaamada kale marka loo eego deegaankan wuu ka dambeeyaa si weyn buu uga dambeeyaa ninkan maskaxdiisii iyo fikirkiisii buu toojiyey deegaanka oo dhan wax ka hirgelaya ama ku filan ayuu keenay waa nin loo duceeyo waa nin loo hambaliyeeyo wixii kala shaqeeyey iyo wixii la soo qabanqaabiyeyba annaguna haddaanu shacbi weynihiinahay ama odayaashii nahay dadkiina waa diyaar mujtamaci waa dadkaa wada tuban meesha bilaa camalka ah jaamac booda cadde warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba